wato waxaan ogaaday aniga inaan waalneen oo maskaxdiisa juusto tahay ma fahamta ya waxaan arkay inaan aniga waalneen oo maskaxdiisa juusto oo dad waalan dunida joogto ma fahamta marka waxa waaye walaasha dadka dhaqankaas leh dadka aqligooda iyo garaadkooda inaan dad waaweyn oo aabba ama hooyooyin leh oo aqligaas iyo garaadkooda inay siiye ukuma inay soo qaataan oo dhahaa qof baa dabada ukuma ka gelinaynaa ama qof baa dabada ukuma saan siinaynaa dad noocaas u hadlaayo horta wax loo jawaabo xaq uma laha dadkaas camal waa dad xanuunsan way xanuunsan yihiin maskax ahaan way xanuunsan yihiin aniga waxaan u tilmaamay dad waalan camal wallahi dad waalan camal baa u tilmaamay dad qof fiyow isma leheena miya maxaad ogaataa qof mar intuu caan yaho sida lagu badbaadiyo way adagta soo moogi beentaa ma aha caan hindeeta waa lagu soo caynaa qasab waaye caytinta meeshan waa la iscaaya walaashay soomaali weyn dhanaa iscays lase caytinta bankeed waxay fiican tahay baraha bulshada waa laga buuxaa baraha bulshada waa laga buuxaa soomaali weyn dhan baa halkan ku jirto lase aniga waxaan ahay qof baraha bulshada ku jiro baraha bulshada waxaan aniga ka ahay qof oo aad iyo aad loo wada ka saayo soomaali weyn dhan gay weyba soomaali degta waa laga yaqaana aqoon baa laygu leeyahay ma fahamta marka waxa waaye anigoo saas ah inay ukuma ii soo qaataan anigoo nin caan ah anigoo baraha bulshada laga yaqaan anigoo oo yacni oo nin lagu faana aho ama nin lagu faano maasha allah loo sacbatuma lagu faana anigoo ah inay ukuma ii soo qaataan oo dhahaan ukuma baas dabada ka gelinaynaa qalad weyn baa iga galay ilaa hadda waxaan sugaa qof isoo raaligeliya ilaa hadda waxaan raaligeli ka tuugaya jadaweyne inay isoo raaligeliyaan oo raaligeli iga soo bixiyaa ma fahamta ya inaa laysoo raaligeliya jadaweyne way ii gafeen jadaweyne way ii gafeen anigoo neerag ah oo boqolo ah ukuma ii soo qaateen marka raaligelin baan ka rabaa ani inay isoo raaligeliyaan ma fahamta dadna maqlaysiin ninkan qalad baa ka gasheen